ما سفر ما في عندي هذا أبو فرح سنة شو دوينتين كل ألعاب شو صارت تعرفون يا هي خبرنا وطابق موعد وانا وريا safarkan wuxuu daba socdaa safaradii tirada badnaa ee aan ku gaarin dhammaan dalkooda oo ahaa amarkii ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda in dalka la gaaro loona gurmado maadaama hadda ayna soo food saartay xanuun adduunkiina walaac badan galiyay Soomaaliyana ay dunida la qaybsanayso dhibaatada ku hayo maanta waxaanu sidnaa agab caafimaad oo ugu talagalnay in aanu geeyno isbitaalka magaalada Baardheere si ay marka bahda caafimaadka ee ummadda u shaqeynaysa u hesho protective gears ee u baahnayeen wixii tastiga laga qaadi lahaa dadka looga shakiyo in ay xanuunka qabaan iyo wixii kale shaqadooda u fududeynaya wuxuu safarkanagii Baardheere kaliya kuma koobna halka markaan ka tagno Galbahaare baanu gaari doonaa sidoo kale wafdi kale isaguna wuxuu islaamaanta gaaray magaalada Doolow oo sidoo kale alaab u gaarsiin doona Luqi Balad Xaawo shalay toole afmadow iyo waxaan marnay Beledweyne iyo Gaalkacyo markii ugu horeysay noqon mayso markii ugu dambeysay waxaanu maanta ururin doonaa xog ku saabsan xaaladda guud ee degmooyinka gobolku sida yihiin wixii ay dhaqaatiirta iyo maamulkuba diyaarsadeen wixii ka dhiman si aan loo noqon markaas warbixin waafiya oo aanu hadhow toolana wixii dawladdu karaankeeda qaban karto ay mid ku salaysan wixii baahida dadku ay tahay inay noqoto waxaanu idinla shaqeyn doonaa dhammaanba wixii farsamo iyo macluumaad iyo agabba ay dawladda Soomaaliya hayso waxaan rabaa kaliya in aad ogaataan dadkan dawladdu wadii maqan tahay waxayna priority amba ahmiyad gaar ah la siinaya si dalka dhan loo wada gaari lahaa dhammaan waftiga nooga yimid dawladda federaalka ah oo hogaaminayo xafiiska ra'iisul wasaaraha Cabdi Fataax iyo tiktorka oo ka socda wasaaradda caafimaadka iyo waaxyaha kala duwan ee ka socda dawladda federaalka dhamaantoodba waxaan leenahay waxaan ku soo dhaweynaynaa gacmo furan ayagoo noo keenay qalabkii ugu muhiimsanaa oo ah corona 19 oo ah kii ugu horeeyay oo ka helna dawladda federaalka waxaan leenahay ku soo dhawaada degmada Galbahaare gacmo furan annagoo ku soo dhaweynayna laamaha kala duwan ee bulshada rayidka ah iyo taliyaha ciidanka federaalka iyo maamulkayga iyo arrimaha bulshada iyo ururka dhalinyarada dhamaantiin waxaan ku soo dhaweynaynaa welcome Cabdi Fataax waxaan rabnaa halkan wixii ka bilowday inaan u sii dhaadhacno isbitaalka oo diyaar ugu yihiin qaybihii kala duwan ee bulshada rayidka waxaan rabay kaliya agabkan caafimaad maadaama medical background ahay kana socdo wasaaradda caafimaadka lana socdana markii la soo dhiibayay oo anigu aan qayb ku lahaa inaan bal idin sheego waxa hadda halkan aan kaga wado oo runtii waxay ka koobantaa waxaan maadaama maanta dalkii uu ka dilaacay cudurkan coronavirus ama covid-19 loo yaqaano in mataqaanaa يعني سبلايجي لو بحنا عن قبل هذا جينو marka sablaga wuxuu isugu jiraa BB wax la yiraahdo ama qalabkii lagu hortagayo cudurka oo laga gaashaamanayo ama shaqaalaha caafimaadka xirteen ama shacabka xirteen oo gloves leh oo mask leh oo wax walba leh sidoo kale waxa ku jira halkan social medicine oo runta ugu tala galnay isbitaalka weyn ee magaalada inuu isticmaalo inta xaaladdu mataqaana
intan iska sii bedelayso sidoo kale halka waxaan ugu jira qalabkii reagentiski labka looga baahnaa iyo testiga dabcan maanta waxaan kale u soconay inaan assessment ku sameeyno bal xaaladda caafimaad ee magaalada Baardheere oo runtii aan rabno inaan mataqaana ka fiirino health facility-yadooda iyo haddii jiraan isolation center ee u tala galeen guarantee side haduu jiro iyo gaabiska markaa jiro iyo baahiyaha markaa taagan iyo challengeskeeda haysto inaan idinka qorno ku noqono tan waxay gargaar hordhaca mid kale weyn insha Allah inuu idin dambe doona rajeyna hadii la yiraahdo kaasna maanta qaabka aad ugu warbixisaan magaalada ay ku xiran tahay ilaahay idinka waxaan idinka rajeynayaa inaad si fiican aad magaalada ugu warbixin doontaan oo noqoto oo assessment-ga noqon doono very useful assessment oo noqon doono hadii la yiraahdo waxaan kale rabaa inaan halkan fariin la iga soo dhiibo wasaaradda caafimaadka aan idin sheego oo ah wacyigelinta inaad badisaan oo mataqaana ay sheeg dadka aad ka wacyigelisaan xaaladan caafimaad ee maanta khatarta ah ee dunida lockdown ku riday ee adduunyada kala xirtay inaad mataqaana ay sheeg yani aad ka wacyigelisaan oo wacyigelinta aad xoog saartaan oo asadka kaliya maanta aad haystaan waxa waaye wacyigelin inaad dadku wax u sheegtaan oo farxashaan oo kala sikadaan oo kulamada yareeyaan oo isku neefsan intaas ayaa maanta idinkaga wada wasaaradda caafimaadka iyo daryeelka bulshada halkan waxa runtii waa ka mahad celinaynaa deeqda aad soo gaarsiiseen iyo garab istaag aad u muujinaysaan dadka reer Baardheere oo ka tirsan ummadda Soomaaliyeed inta kadib soo dhawaada boqolkiiba boqol aan soo dhaweynaynaa qalbi furan iyo gacmo furan ku soo dhawaada halkan waa degmada Baardheere ee gobolka Gedo duruufaha waxay la wadaagtaa guud ahaan Soomaaliya يعني هيئة iyo moogtahay wasaaradda caafimaadka oo dadaalaya oo shaqooyin qabanayna waa joogan dad u jooga walow ay ku filneen baahida jira iyo culaysyada jira oo iska badan yihiin deegaanku waa deegaan ballaaran runtii xaalado badan oo moogta duruufo ku xindaan baa jira oo culaysyo badan baa ka jiro dawladda federaalka Soomaaliya uga mahad celinayna waxayna soo gaarsiisay